liban bal soo dhawow waxaad naga warbixisay wararkii ugu dambeeyay weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo ومازنتها عبد القني تاك أرورته هراء حرون جبين عايش عبد الله وكمل علماء سيد وين لوجي بيني مجال قال كعيوبها وير سوتشر قرحية وير رقم بيتنا لوجي بعدي حرون تشبه شدول مجال قال كعيو وحنا قرحة كذب جوابته قالي رقم بيتنا خواص وتوكي حرتي شعب دولة يقصد حرون كنت على مجال قال كعيو حرون تقبل كمزو waxaana halkaasi ku geeriyooday dad badan oo ugu horeeyo shacab duuli oo kamid ahaa wadaadka haystay xaruntaasi taasi oo sida dad goobjoogayaal ay sheegeen raggii markay ay gaariga qarxay ku dhifteen xarunta uu lahaa kadib ay toogteen madaxa ay ka toogteen isla markaana gudaha ay usii galeen waxaana intaasi kadib gudaha galay rag weetan kuwaasoo tooganaya raggii gudaha ku jiray intaas kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan ammaanka galmudug kuwa danab ee dowladda federaalka soomaaliya ku howlgala magaalada gaalkacyo kuwaasoo dagaal adag la galay ciidamadii weerar ku socday ee ku jiray gudaha guriga waxaana weerar ama dagaal ilaa hal saac iyo bar uu ka socday mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada gaalkacyo gaar ahaan goobihii u degnaa shacab duuli waxaana dhammaantii goordhow saraakiisha ciidamada ammaanka danab iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudug ay xaqiijiyeen in lasoo gabagabeeyo howlgalka waxaana ay sheegeen in raggii weerarka ay gudaha ku jiray ay dileen isla markaana mid ka midna dhaawac ahaan oo qabtay ciidamada hadda ay gacanta ay ku hayaan dhimashada inta hadda la xaqiijiyay ilaa 15 qofood ayay sii gaaraysaa oo ugu horeeyo shacab duuli ahaa wadaadkii haystay xaruntan isla markaana daad gurwaday weerarkii lagu qaaday wiil ka degnaa magaalada gaalkacyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo aan la hadalnay ama shir jira ay goobta ku qabtay waxay sheegeen in howlgalka lasoo abtiray isla markaana hadda xaaladdu ay kusoo laabatay sidii hore waxaana goobta isku soo baxay guud ahaan shacab badan oo ka tegay xaafadaha magaalada gaalkacyo kuwaasoo fiirinaya baaxadda qaraxa sidoo kale waxaa jiray qarax kale oo isla maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo uu qarxay gaari nooha ah waxaana la sheegay inay ku dhinteen 2 qofood oo kamid ahaa dadkii saarnaa kaasi oo ka dhacay gudaha bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug marka xaaladda guud hadda way degan tahay wax rasaasna liban markaa saraakiisha kama dhacayso ciidamadii ammaanka ayaa weli goobta ku sugan waxaana goobta ku sugan shacab fara badan liban marka saraakiisha hadlay miyay sheegeen tirada ragga hubaysnaa ee gudaha u galay xarunta masantahay waxay sheegeen ama ay xaqiijinay ilaa 4 qofood in gudaha ay ka dagaalamaysay 3 ka midna la dilay mid kalena dhaawac ahaan ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen ma jiraan marka dad gudaha xarunta laga soo badbaadiyey intii weerarka uu socday ama marka weerarka la soo afjiray iyagoo nool banaanka loo soo saaray ma jiraan guud ahaan dadkii ku sugnaa gudaha ku jiray xilliga weerarku dhacaya guud ahaan waa la toogtay raggii weesna ayaa toogtay waxaana weerarka intuu socday ku dhaawacmay qaar ka mid ah ciidamadii marka saraakiisha meesha sheegin wax la soo badbaadiyey weerarkaasi halka qaraxa labaad uu ka dhacay ee gaariga nooha aad noogu sheegtay iyo xarunta Sheekh Cabdiwali ee la toogtay maanta qiyaastii imise kiiloomitir ay soo jiraan liban waa maasantahay waa magaalada labada qarax ee ka dhacay xarunta Sheekh Cabdiwali waxa gurigiisa ama xaruntiisa ay ku taallaa meel magaalada banaankeeda qaraxana waxa uu ka dhacay dhinaca kale oo ka magaalada gaalkacyo meel ka fog oo aan musaafo aan u dhoweyn marka qaraxyada marka waxa la leeyahay noohada gaariga noohada qarxay waxa uu ahaa gaarigii noohada ee raggii la socday weerarka soo qaaday ay saarnaayeen sida ay dadku joogayaal ay xaqiijiyeen balse ilaa hadda war rasmi ma hayno qaraxa dhacay liban marka dadka idaacadda naga dhageysanaya Sheekh Cabdiwali aan aqoon u lahayn bal sharaxaad ka sii adiga gaalkacyo kula sugnaa sheekha muxuu ahaa maxaa lagu eedeyn jiray waa maasantahay Sheekh Cabdiwali waxa uu ahaa mid ka mid ah wadaadada kaasi oo horay culimada hay'adda culimada Soomaaliyeed ay sheegeen inuu diinta uu ka baxay kadib markii sida la sheegay uu soo bandhigay sawir uu ku matalayo
nabigeena maxamed nabadgeliyo korkiisa ahaatee taasoo shaki ama sida culamada qaarkood ay ku kala aragdunaadeen arrinta uu sheekh cabduli uu soo bandhigay balse dadyooga ayaa inta badan sheegaya in arrintan sheekha uu asiga dhibaato ay ku noqon karto waxaana jiray culamaawidiin oo ku shiray muqdisho oo horey u sheegay in sheekha uu gaaloobay halka horena asigana uu la hadlay warbaahinta uu sheegay in sawirka uu soo bandhigay uusan ahayn sawir nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam balse uu yahay wadaadkaasi oo uu sheegay inuu yahay mid ka mid a culamadii wax uu ka soo bartay liban cajiib xaaji aad baad u mahadsan tahay qadka taleefanka ayuu si toos ah ugu warramayay magaalada gaalkacyo gobolka mudug wuxuuna ahaa wakiil wareedka idaacadda kulmiye